بسم الله الرحمن الرحيم وعن أول أكسن وولاشين سهر قرن أو إذن لسود وهذا مرة بعد يوم الصباح حاول وحن إذن هيا مروة مدن وكمل شقاله تربطاريا الصومالية وإنه غشة كين دونتا حدود الصومالية إيه وحيابها أي كسوغنتا يسيد أي داخل الصومالية كسوغلو يسيد أي حد يسكريان دولة كينيا شلنا يسكريان جلتي دولة كندا دولة إيشك إثيوبيا ولا ريال دل كنا ودل تشتري ودل بابية لكن ما أنت واحد إنوصل بحضي أو نائف تينيسا دولة واحد إذن كلا بحدونا مروة مدن أو إنو قاعدة لقين دون تهدير ربي إدمه سيدة أي تهي ماشا مروة مدن أو كسوغان دلك الصومالية أيضا إنو شيء دونتا ولا ريال أنا واحد إذن قدر سنة يا أيضا مدينة وإن نقرب استغنى قول بأن سوى جهدي دولة بأن إنو دلتي صدن سنين بابا سنين وإن هيل يهوبا قرب استغنى أيضا كينا كعان وكعنو قبر والبوي درع بعوينها waad u gadan kartaa aroosyada iyo baadiyada u istaag qarankaaga u istaag dalkaaga u istaag nimadaada ma ahan in Kenyaati aan ognahay maanta inoo soo bareero laakiin waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed haram cad iyo kuwa kale oo badanba ciidamada danab intii aan ka tagay halayga raali ahaado ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo dhan aad baad u mahadsantiin walaalayaal waxaad ku soo dhawaataanba waa mudan oo inoo sii qaada dhigayn doonta hadii aan leeyahay halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed iyo inta maqlaysa iyo intaan maqlayninba wax kale halkan uga mahad celinayaa walaashay Sahar Qaran oo ku hawlan ummadda Soomaaliyeed sidii qarannimadooda iyo midnimadooda u garab istaagi lahayd waxaan halkan ka soo jeedinayaa maanta 30 sanadood farxad aanan arkin baan maanta arkay xuduudda Soomaaliya waxaan hay dadkii ka shaqeyn jiray Soomaalida turbatariyada ahaa ee cashuurta Soomaaliyeed halka uga qaadi jiray qaranka Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa maanta guusha soo hoyatay mid caadiya maaha 30 sanadood maanta farxad iigu horeysa waxaan ogahay meeshaas inay tahay 3 dawladood dhexdooda meesha dhan ee Kenya iyo Ethiopia lifeline-koodu maro maanta haddii meesha ciidamadeena qaranka Soomaaliyeed qabsadeen waa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay qof dambo Soomaaliya iyo ciidan dambo Soomaaliyana aan looga cagajuuleynin cashuurna looga baryeynin ciidamadeena dad shisheeya ama maxay mushaharkooda aan looga soo bari doonin maanta haddii halka qarankeena Soomaaliyeed istaago ummadeenana ka difaacayo lifekii nolosha Kenya iyo Ethiopia oo ay ku noqdeen gafanaha ay cashuurteeni ay iyagu dalkooda Kenya iyo Ethiopia loogu baac mushtari lagu siinayay maanta inay gacanteena soo gashay ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa maalintii 2 milyan oo dollar baa ka soo gashay cashuurta Soomaaliya halka ciidamadeena qaranka uma baahna cid dambe oo caawiso oo lacag siisa intaas ku filan ciidanka qaranka waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed ama beled xaawo ama xuduudaha dadka degan inay difaacaan qarankooda daba istaagaan oo maanta gabadha yaanyada gadaysa iyo inanka yar ee 2 jirka iyo 3 jirka 4 jirka 50 jirka iyo mid hurdo iyo mid soo jeedaba inaad kacdaan oo ciidamadeena garab istaagtaan oo biyaha daba qaadaan oo gurmadka ciidamadiina aad dhinac istaagtaan haddaydan maanta taa u istaagin qaran Soomaaliyeed iyo midnimo Soomaaliyeed la arki maayo maanta inoogu horeysa 30 sanadood maan arag waxa maanta xuduudda ay madaafiicdu ula dhacayso dadka shacabka Soomaaliyeed ay indhaha caalamkuna u daawanayaan xaqii baa soo degdegay awal nafsiga waxa sidii jiray diinka maanta haadaasida waxaad cishihii gasho casarkii baad arkaysaa maanta garab istaaga ciidankiina meeshaas waa lifeline-kii ummadda Kenya iyo Ethiopia maanta cashuurteena inagu fulanay garab istaago qarankiina maanta difaaca oo dhinac istaago dhagaxa tuura oo marada tuura oo hooyooyinku biyaha daba qaadaan intaasaan maanta aan soo jeedinayaa farxad bayna ii tahay guul qaranka Soomaaliyeed gaareen bayna ii tahay waadna mahadsantiin Sahar Qaranay waan ku salaamay adigana